Fahamka ayaa furaha badbaadada ah, waana sababta aan maanta idinkugu hogaaminayo sheeko dhab ah oo maskaxdaada bedeli karta. Maskaxda la hiray, xorriyadda fikirka oo la hiray. Waxaa jira habsiyo aan lagu xiraynin jirka, laakiin lagu hayo maskaxda. Waxaa jira silsilado aan la arkin, balse haniba qofka. Waxaa jira dad nool, balse aan fikirin. Dad socdo, balse aan ogeyn halkay u socdaan. Maanta waxaan ka hadlaynaa maskaxda la hiray, xaalad halis ah oo qabsata bulshada, qofka iyo xitaa ummadda oo dhan. Waa maxay maskaxda la hiray? Maskaxda la hiray waa marka qof ama bulsho diido inay wax cusub dhageystaan, ka cabsato inay su'aal iska weydiiyaan waxaa la baray, rumaysnaato wax walba oo la yiraahdo, xitaa haddii ay khalad yihiin. Waa in la xiro albaabkii fikirka hor ah oo ay noolaato maskax maxkamadaysan, cabsi leh, aan hor u ahayn fikirkeeda. Qofka la hiro jirkiisu wuu degi karaa, laakiin maskaxda la hiro qoomamo kama baxdo. Sidee loo xiraa maskaxda? Maskaxda lama hiro si hoog ah, waxaa laga hiraa cabsi la abuuray. Haddii aad sidaa u fikirto, waad dambaysaa. Barbaarin xiran, ha isweydiinin, sidaas ayay u socotaa. Diidmo hog cusub, haddii aad ka duwanaato bulshada, waad khaldan tahay. Marka qofka la baro in uusan su'aal isweydiin karin, marka laga reebo xaqa uu u leeyahay inuu ka shakiyo khaladka, markaas ayuu maskaxdiisu xirantaa. Calaamadaha maskaxda la hiray. Qofka maskaxdiisu xiran tahay wuxuu leeyahay: 1. Wuu xanaaqaa marka la weydiiyo su'aal. 2. Wuxuu diidaa wax cusub oo aanu garanaynin. 3. Wuxuu aaminsan yahay in aragtidiisu kaliya tahay tan saxda ah. 4. Wuxuu nacaa dadka ku leh bal dib u fiirso. Waxaad arkaysaa qof leh anigaa sax ah, adigu waad jaahil tahay. Nin weyn ayaa sidaa yidhi, marka waa sax. Horey ayaa loo arkay, wax cusub lama rabo. Maskaxda la hiray ma aqbasho runta, xitaa haddii ay hindhaha ka hor joogto. Cawaaqibka maxaa ka dhasha maskaxda la hiray? Bulshada maskaxdeeda la hiray wax horumar ah ma gaarto. Cilmiga cusub way neceb tahay. Qofka horumarka rabo waa lagu eedeeyaa. Qofka maskaxdiisu xiran tahay wuxuu nool yahay nolol cid kale ka fikirtay. Wuxuu diidaa inuu fikir gaar ah yeesho. Wuxuu hor istaagaa cid kasta oo doonaysa inay aragti la timaado. Bulshada horumarta ma ahan kan ugu hoggan, ee waa tan ugu furfuran. Sidee loo furaa maskaxda la hiray? Furaha maskaxda ma ahan fur muhiimad sir ah leh, waa su'aal. Waa in qofku ku dhiirado inuu yiraahdo ma haddaan khaldanahay. Waa inuu barto waxaan maqlay, laakiin maxaa dhab ah? Qofka maskaxdiisu furan tahay wuxuu dhageysan karaa xitaa aragti uusan raacsanayn. Wuxuu weydiin karaa su'aal hor ah. Wuxuu ogol yahay inuu wax barto mar walba. Maskaxda furani ma diido fikir kale, way falanqaysaa, kala saartaa, kadibna doorataa. Halista aamusnaanta maskaxda. Qaar baa doorbida inaysan fikirin, waayo fikirku wuu daaliyaa. Laakiin aamusnaanta maskaxda waxay dhalisaa in qofka la marin habaabiyo, in la noqdo addoon aan la xirin jir ahaan, balse maskax ahaan loo xiray. Qof aan fikirin wuxuu caabudaa cidda ugu dhawaaqa dheer. Wuxuu raacaa dad aan ogeyn waxay ku wadaan. Wuxuu ogol yahay dulmi isagoo u haysta diin, dhaqanka ama sidii hore. Qof aan isweydiinin sababta uu wax u aaminsan yahay
waa qof diyaar u ah inuu mar kasta la galdo. Xorriyaddu ma aha jirka waa maskaxda. Qof xor ah ma aha mid dhaqaaqaya waa mid fekeraya. Qofka fekeraya, isweydiinaya, xogta baaraya, su'aalaha dhagaysanaya waa kan xorta ah. Cadowga maskaxda ma aha jaahilnimo oo keliya, waa kibirka aan ogolayn in la saho. Xikmadaha ugu dambeeya, qofka maskaxdiisu xiran tahay wuxuu nool yahay nolol cid kale u fekertay. Haddii aad ogolaatay in lagu fekero, waxaad ogolaatay in lagu xukumo. Maskaxda furan waa iftiin, tan xiran waa mugdi. Xorriyaddu micnaheedu waa inaad su'aali karto xitaa waxaad horay u rumaysnayd. Anigu waa Maajid, halkaad nagala socotona waa Fahamka. Hadda aynu u dhowaano feker xor ah, qalbi furan iyo maskax ifaysa.